dhawaan waxaa bilaabmi doona mashruuc ballaaran oo wadada Nicolette iyadu ku taala magaalada Minneapolis wadadaasi oo dhawaan lagu sameyn doono dib habeen aad u ballaaran oo looga galeeyahay in lagu dhiso wadadaasi hadaba neighborhoodka degan wadadaasi nawaaxigeeda loo yaqaan Lendal Neighborhood Association ayaa iyagu dhawaan waxay qabteen xaflad isla markaasina ay ka soo qayb galeen wadadaasi mashruuca ah dhismaheeda ayaa looga hadlay hadaba barnaamijkii oo gaarka ahaa oo ku saabsan wadadaasi ayaan iyaduna qaybteeda idin soo gudbinay waqtiga daawada ku soo dhawaada My name is Eric Hansen. I'm a project coordinator with the Department of Community Planning and Economic Development. My role on the Nicolette project is to assist our Public Works Department and the project engineer, Bev Warnka, getting the word out to the business community between Lake Street and 40th. Hi, I'm Beverly Warmka. I'm the project engineer for the City of Minneapolis Public Works. I'm basically the coordinator of kind of the project as it's moving forward and kind of making sure all the pieces are moving together as efficiently as possible. السلام عليكم محمد حجي مقالة مينيابوليس neighborhood community relations oo shaqadeedu waxay qaabilsantay inta badan xiriirka bulshada iyo la shaqeynta xagga bulshooyinka gudaha magaalada Minneapolis. Maanta waxaan meesha u joogaa muhiimadda ogeysiis ku saabsan dhismo ballaaran oo ka bilaabi doono Nicolette Avenue jidka Nicolette. Okay. The Nicolette Avenue will be reconstructed between Lake Street and 40th Street in a total of 5 phases. Those phases are subdivided then in 2012 and 2013. 2012 work will be from 3 phases, Lake Street to 32nd, then 32nd to 35th, and 35th to 36th. Each phase will take approximately 2 months. There'll be a complete reconstruction where they remove the sidewalks, the curbs, gutters, streets, go all the way down to the base and build it back up completely. runtii dhismahan waa dhismo ballaaran oo magaalada waddo oo kusoo binaysa jidkan magaalada Minneapolis marka wuxuu ka bilaabanayaa dhismahanu jidka Lake geeskiisa waqooyi oo wuxuu socon doonaa ilaa jidka 4aad 40th Street waa mashruuc ballaaran marka adigu sababta loo soo binayana waxa waaye laamiga saaran baa ah mid qoobay oo runtii burburay oo u baahan dib u isboynaysiin magaalada ay u tala gashay marka runtiina 5 qaybood 5 meelood baa loo qaybin doonaa qorshahan qaybta koowaad waxay bilaabaysaa insha Allah bishan aan ku jirno May todobadeeda waxay ka bilaabaysaa Nicolette waxayna socon doontaa ilaa 34 qaybta kalena waxay noqon doontaa 34 ilaa 35 ayay socon doontaa saan maleynaya dib baan ugu noqonaynaa wixii su'aalana waxaan Beverly baan naga dhaadhicin doonaa. Well, Nicolette Avenue was last constructed in 1954 and it was last overlaid in 1977. So the surface is in very poor shape. Once the road is reconstructed, the new road will have the new surface, new sidewalks, turf boulevards or grass boulevards in many places, trees, and between Lake Street and 36th Street, new street lighting will be added. dib ay ugu celiso waxay tiri sababta loo subinaya waxa weeye laamiga oo burburay oo duqoobay awgeed yaa qorshahan mashruuca dhismaha u socdaa waa dib isboonaysiin oo waxay waliba ku dhawaaqday ismihii ugu horeeyay awalka jidkan waxaa la dhisay 1974 dayactirkii ugu dambeeyay yaa ahaa 1977 marka dhismahan markii la dhameystiro jidkan Nicolette wuxuu noqon doonaa mid muuqaalkiisu aad iyo aad u wanaagsan yahay runtii oo waxaa loo sameyn doonaa jidad dariiqyo jidka garab socdo oo dadku maraan dadka lugeeya ay maraan waxaa loo suubin doonaa tubooyin biyaha roobka qaado oo wasaqda dejiyo waxaa loo
lagu tallaali doonaa geedo ka dhigo jid aad iyo aad muuqaalkiisu u wanaagsan yahay marka waa qorshe saa u ballaaran oo adigu bilaabanaya sanadkan May socon doonana ilaa adigu sanadka soo socdo ilaa bartamihiis. While construction is ongoing, all of the businesses will be open along Nicollet. So we want to make sure that everybody can continue to come to places like Goda Cafe or the Burger King or Irene's Tax Service here at 34th and all along Nicollet Avenue. So please plan ahead because the detour will be on First and Blaisdell, but access will remain. You'll be able to walk on the sidewalks. It might be a little bit dusty and it might be a little dirty, but all these businesses will be open. We'll still have access to everybody's residence and we'll have access in and out to most of the parking lots. So please call ahead to the businesses. They want you to come down, and once this is all done, which will be a few short weeks in each section, we'll have a much better street and a fantastic new Nicollet Avenue. Runtii wuxuu ku dhawaaqay qayb baa loo suganayaa dhismahan muhiimaduna waxaa waaye intuu dhismuhu socdo ganacsiga wuu furnaan doonaa fadlan kasugnaada ganacsigu wuu furan yahay dadkeeda dhismaha wuu soconayaa laakiin guri kasto ganacsi kasta waxaa ka furan mareen baa loo yeelayaa dadku soo maraan laakiin ku talagal fadlan oo la soo xiriir ganacsigaas iyo meeshaad u socota meeshaad mari lahayd dadku adigu waxaa laga yaabaa qayb in la xiro laakiin waxaa loo suubinayaa mareen ama access dadku ay maraan si ay ganacsiga iyo guryahooda u tagaan waayo shaqaalaha mari karo waxaa mari kara dadka deegaanka oo guryaha degan macaamiiltu kulli jidku wuu furan yahay marka fadlan ku talagal oo adigu socdaalka markaad imaanaysid ku talagal meeshaad mari lahayd midda kale maadaama waddada Nicollet la xirayo gaadiidku wuxuu mari doonaa First Avenue oo garab socda Nicollet waxa kale uu mari doonaa Blaisdell marka labadaa jid baa gaadiidka u furan oo inta dhismo socda jidadkaas la maraya laakiin fadlan ogow ganacsigu wuu furan yahay oo adigu waa ka soo qayb gala ganacsiga oo imaanaya Muuse oo asaguna ka mid ah neighborhoodka ayaan asagana hal su'aal oo ku saabsan asagu sida uu arko wadadan waxtarka u yeelan karto bulshada Soomaalida ee ayagu ku nool gaar ahaan wadada Nicollet iyo nawaaxigeed Muuse السلام عليكم والسلامتي ولا وديبيهانتي نودن waxaan ogeysiinaygu waxay intan waa ogeysiis la ogeysiinayo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay ogaadaan inay business kastaba uu furan yahay inay ku soo dhawaan kartiin aanan ka baqin construction kan socon doona ama dhismaha socon doona dib weyn inuu yeelan doonin oo inaga hor joogsanayn in amtii businessadii la tagayay iyo guryaha loo hoyanayaba soo dhawaada